shirweynahan oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday deegaanka Aadha Cadeeye gobolka Sool ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo shirkan ay ayahooda kaga tashanayeen mid ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Aadha Cadeeye gobolka Sool waxaana gabagabadii lagu shaaciyay in Sultan Mustafa Maxamuud Said oo dhawaan 15 May lagu caleemo saari doono sultaankan oo ah sultaanka beesha Fuqashini ee deegaanka Aadha Cadeeye waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay oo marxaladii kala duwan oo soo maray shirkii iyo waliba gudidii qabanqaabadu ay ka warbixisay haddaan taariikh yar ka hadlo oo shirkan ugu noqday hawshiisa soo bilaabatay guddi ganacsato ah oo ka kooban beesha ayaa shiray oo ka shiray isaga yimid daliya dibad arkayna baahida loo qabo dadka in la mideeyo oo hoggaan dhaqameed mideeyo loo sameeyo guddigaasi markay shirkii shireen waxay qaateen arrinta inay dadka u bandhigaan waxay u bandhigeen talooyinii meel kasta ay joogeen daliya dibad arrinta kadib waxay markay beelihii dadkii aqbaleen hawsha waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid ah uqaasha deegaanka iyagoo sheegay inay ku kalsoon yihiin Sultan Mustafa ayna beeshoodu isku raacday inuu noqdo sultaanka cusub ee beesha Fuqashini ee deegaanka Aadha Cadeeye gobolka Sool ay fadhiyaan marway oo ay u hordhiga fadhiyaan oo marti sharaf oo uqaashi fadhido aan ciidina u maqnay waxaanu qaadanay Sultan Mustafa Maxamuud Said xukunka uu keeno isagoo meel iska maray laba oo ishayeeynaya ka dareer boqolkiina bixiyo dabaqad kasta oo aadamuhu leeyahay ay ku heshiisay in sultaan loo doorto Mustafa Maxamuud Said siyaasi Abdiwaahid Abdirahmaan Abdulqaadir iyo sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada iyo qurbo jooga beeshaasi ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweynayaan taageersan yihiin sultaanka cusub ee beeshooda waxay buuxiyeen kaalintii adeega ama kaalintii waxay noqdeen dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha mid ka mid ah ayay noqdeen waxay bixinayeen biilasha reeraha waxay bixinayeen oo caawinayeen bulshooyinkii burburay iyo qaxootigii Soomaaliyeed ee meel kasta u firdhay ayay bixinayeen waxay ka qayb qaadanayeen dhismaha dhulkada bulshada Soomaaliyeed ka qayb qaadanayeen horumarka waddanka ka qayb qaateen marka labaad waan u ducaynayaa waxaan ka baryayaa xilka culus ee la saaray inuu ku asturo oo uu noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa badiil iyo cadaalad ku hogaamiyo oo ku xukumo waxaan u mahadcelinayaa in allaale intii ka soo shaqaysay hawshan qiimaha leh maanta halkan lagu qabtay oo ay ugu horeyso ganacsatadii marka hore fikirka lahayd guddigii qabanqaabada 15 lahayd xafladda loo xisaaray meeshan waxaa la yidhi in aftaan kaliya loo baahan marka aniga cudurta ma badan maayo laakiin far kaliya foorma dhaqdo waxaan leeyahay sultaanka hala taageero sultaanka anigu dhammaan dhalinyarteen hadaf ahaan markuu rabo sultaan noo ahaa gabagabadiina waxaa munaasabadaasi lagu shaacinayay Sultan Mustafa ka hadlay xildhibaan Cabdirahmaan Muuse Jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhaweynayo Sultan Mustafa Maxamuud Said inuu noqdo sultaanka cusub ee beesha Fuqashini ee deegaanka Aadha Cadeeye gobolka Sool sultaan ka aynu soo xulanay ee aan shubistiisii oo dhiman tahay muddo hawl badan xamad dibadaha Kenya Muqdisho Hargeysa Burco iyo la Soolba dad badan baa iskaga yimid sultaankan ayaa la filayaa 15 bisha shanaad ee sanadka dambe ee 16 lagu caan shubi doono loona dhigi doono munaasabada caleemo saarka waa Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland deegaanka Aadha Cadeeye gobolka Sool